kulanti waxaan u wanaagsan dhammaantiinba waana barnaamij gaar oo ku saabsan urur siyaasadeedka cusub ee la magac baxay ururka ummadda oo xafladii ku dhawaaqida lagu qabtay dhawaan magaalada Hargeysa. munaasabadaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay taageerayaasha iyo waliba aasaasayaasha ururkan. gudoomiyaha ururkaasi ayaa waxa uu yahay Dr. Maxamed Cabdi Gaboose. haddaba munaasabadii furitaanka ayaa waxay u dhacday sida tan. hotel Mansour magaalada Hargeysa xarunta Jamhuuriyadda Somaliland waxaynu madashan arooriyo u fadhinaa xafladda ama munaasabadda wanqalka loogu dhawaaqayo urur siyaasadeedka la magac baxay ururka ummadda oo maanta ku soo biiray saaxadda siyaasadda Somaliland. dhammaantiin marti sharaf golayaasha qaranka, salaadiin, aqoon-yahan, ganacsato, dhalinyarada, haweenka, waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin waqtiga aad noo soo horteen. ay ka faa'iideysanayso furashada ururada siyaasadda waxa ilaa hadda saaxadda soo galay oo lagu dhawaaqay urur siyaasadeed doora. haddaba waxaan jecelahay inaan idinku wareejiyo deeqa si ay inoogu faahfaahiso mabaadi'da guud ee ururka ummadda. magaca ururka oo dhan waa ururka maareynta danta dalka. marka la soo gaabiyo waa urur u qorma ururka ummadda. astaanta ururku waa shamca baxaya iyo magaca ururka oo ay hareeraha ka xigaan caleemadooda. calanka ururku wuxuu ka kooban yahay midabada casaan iyo cadaan oo isgarab yaal. xarunta dhexe ururku waxay noqon doontaa caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland ee Hargeysa. gobol kasta, degmo kasta iyo tuulo kasta ururku wuxuu ku yeelan doonaa laamo kala duwan iyo waliba dalalka dibadda. mabaadi'da guud ee ururka haddaan iyagana wax idinka sheego, ururka waxaa saldhig u ah diinta islaamka, qadiyadda geesinimada Somaliland iyo ilaalinta iyo ku dhaqanka dastuurka qaranka iyo xeerarka kale ee Jamhuuriyadda Somaliland. ururku wuxuu ku sugayaa cadaalad, nabadgelyo iyo wadajir ummadda reer Somaliland. wuxuu xurmaynayaa xuquuqaha iyo xorriyadda aasaasiga ah ee muwaadiniinta. wuxuu dhiirigelinayaa dimuqraadiyadda, maamul wanaagga, habka iyo hanaanka nidaamka dhaqaalaha xorta ah iyo horumarinta adeegyada aasaasiga ah arrimaha bulshada. wuxuu xil gaar ah iska saarayaa ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta si loo badbaadiyo jiritaankooda. wuxuu mudnaan siinayaa daris wanaagga, iskaashiga dalalka aynu jaarka nahay iyo xoojinta doorkeeda mas'uuliyadeed aynu ku leenahay bulshada caalamka. intaa waxaan markan u yeedhayaa Suldaan Barre. waa urur cajaa'ib leh. cajaa'ib wuxuu ku yeeshay mudduu ka fiirsanayay. magaca uu la baxay muddaa laga fiirsanayay. raga mawaaniina oo aad wax u garada arrinkaa iyo magacan iyaa soo saaray. waayo ummaddaa leh. ummaddu dee waxay ka koobantahay inta halkaa fadhida ka koobantahay. waxay ka koobantahay ummaddu inta halkaa isku dhibay ummaddu ka koobantahay. anigu waxa weeyaan badin maayo, ducuu naga mudan yahay gudoomiyaha Gaboose, Maxamed Gaboose magaciisa kolley wuxuu naga mudan yahay duco iyo ammaan buu naga mudan yahay. annagu waa u ducaynaynaa inuu ilaahay kor u qaadaan u ducaynaynaa. kii lagu soo hirtay lagu guulaystay inuu noqdaan ugu ducaynaynaa. waxaan ugu ducaynaynaa kii caawa ummadda hagaan ugu ducaynaynaa. dhaaxaa urura lagu dhawaaqay, ururo badanna waa jireen. horta ururo in la furo yaa u halgamay, yaa dawladda weydiisto ku kaambeyn gareeyey, yaa yidhi urura ha la furo. ninkii ugu horeeyay u halgamay gudoomiyaha ururka Maxamed Cabdi Gaboose iyo Faysal iyo ragga halka fadhiya ayaa u halgamay. maanta ninkasta urur ha sheegtay in urur la furo waxa u halgamay oo xabsi u galay oo u orday oo inta u soo halgamayay waxa weeye Dr. Maxamed Cabdi Gaboose. Maxamed Cabdi Gaboose waa kuma bay noqotay aqoontiisu waa maxay bay noqotay
waayo aragnimadiisa siyaasadeed maxay noqotay waxa weeye kollay ummaddu ninba ceesaantii ceelgeel baa sooon tiraada ururkani waxay soo bandhigeen nin aqoontiisu doctor tahay nin waayo aragnimadiisu 30 sannadood iyo in ka badan tahay haddii aynu in yar si kooban u sheegno doctor maxamed cabdi jaamicaddiisa waqtigu dhammaysta waa la garanayaa dalalku waxa ku soo bartayna waa la garanayaa dowladdii maxamed siyaad barre wasiir buu ka noqday ururkii SNM golaha dhexuu galay guurtida soomaalida afhayeenkeeduu noqday dhowr iyo 9-shanadii wuxuu noqday wasiir daakhili dowladdii cigaal ilaa iyo imika wuxuu furtay urur la yiraahdo sahan ururkii sahan la yiraahdo waa la ogaa sheekadiisii waa ka soo waaday qaran buu furtay waa la xidhay wuu soo baxay wasiir daakhili buu noqday himiladiisii buu ku adkaystay inuu maanta halkayna ku shiriyo oo ururkiisuna ugu doorto guddoomiye waxaanu leenahay waa guul annaguna waa ku hambalyeelaynaa maxamed cabdi gaboose shuruuddii ummaddu kaa rabtay ama aqoon ha ahaato ama waayo arag ha ahaatee intiida waad bixisay raggaad dooratayna waa rag lagu kalsoonaan karo xubno wanaagsanna waa dooratay adiga iyo raggaad dooratayna waxaanu leenahay waa mahadsantihiin hambaliyo waxaanu idiin rajaynaynaa guul annaguna waa idinku garab taagannahay waxaan u soo joogsaday anoo ka wakiila qaasim raad tibaax oo nin mutacallima horena uga shaqeeyay dalka oo jaamacadihii Soomaaliya agaasimayaashii ka ahaa waqtigaa maxamed gaboose asagana waan wada shaqaynay wadar jeer baan wada shaqaynay ilaa 83 meelaha yaa iskuulka ay horeysay si fiican baan u aqaanaa Soomaalidu qofka runsheega ah iyo qofka waqtiga ilaaliya danihiisa ama dadka oo ka shaqeynaya muraad badan uma yeeshaan waayo dalkii baaba nidaamkan hadda ku qoran mataqaanaa ururka ee maamul hagaajinta dee lama rabinba yaa maamul qubanahooda dhex yaacayo iyo dadku jecel yihiin oo la isasaxaadayo oo la wadoodayo wax oo shaqadu yar tahay waana nin sheekha waana nin mutacallima waana nin waqtiga aan ka been sheegin waqtiga uu shaqadiisa qabto waa darasay waan doonaya inaan ka hadlo maanta waxa weeye aqoonta iyo tacliinta waatan halka ay keentay anigoo waddankayga jecel inaan u shaqeeyo oo muddo dheer macallin soo ahaa oo ardaydaydii oo qaar salaadiin yihiin qaarna wasare yihiin ay waddanka ka buuxaan ayaan 6 sannadood imika waddanka joogay waxaan jeclaystay inaan barbarkayga ka galo halganka Somaliland oo aan jecel oo aqoon wax ku doono waxaa laygu yidhi naynow haswareerin waa lagaa badan yahay oo waa lagaa xoog weyn yahay oo cid aqoon u jeedaa ma ay jirto maan jeclaysan arrinkaa waa in meeshaan tago markaan ardaydeedii arko oo jagooyin wanaagsan haya ama wasiir ah ama waan ku farxaa iyana way soo dhoway waana waxaan jeclahay aqoontii baan u hidoobay laakiin waa layga qaadi waayey anuun baana dhowey doonaya inaan dhoofo oo Maraykan iskaga noqdo ayaa دكتورka maxamed cabdi gaboose ii yeelay waan wada fariisanay
wuxuu yidhi xisbi baanu furaynaa aqoonta ku shaqeeya nagala qayb gal oo nala reeb war maxamedow kaas horeba loo waaye anigu musaafir baan ahay maa iska qaydaysa arrinkii buu iga warramay wuxuu ii casubay shirkii aasaasuu ii casubay lagu aasaasayay xisbiga waan tegey wuu sharxay marka xisbigani ururkan ummaddu wuxuu kaga duwan yahay ururada kale ayaan jeclahay inaan ii sheego wuxuu kaga duwan yahay dad aqoon-yahan oo khibrad leh ayaa horta ka shaqaynaya oo fulintiisa iyo xubnihiisa oo dhan waa mid lagu diirsada taasoo qura maaha laba cayinadood laba walax oo ay leeyihiin oo adduunka maanta lagaga faa'iido baan idiin sheegaya mar horta waa niman isku duuban oo aan qabiil iyo saaxiibtinimo iyo waxba lagu keenay aqoon waxay leeyihiin wax la yidhahdo team work waa tiim wada shaqaynaya weyn mar labaadkana waa tiim wada doonaya inay mid waliba uu noqdo winner oo hawsha loo diro uu ka soo baxo marka waa hoggaano wanaagsan waa taynu doonaynay waa taynu weynay arrintaa aqoonta ayaa maanta aniga ii joojisay ururkana waa ururka keliya ee aan galay ee aan doonay inaan la shaqeeyo oo midho ka dhaliyo haddii eeba karto runtii aniga magacaygu yahay Dr. Xuseen waa markii ugu horreysay runtii aan fagaaraha siyaasad soo istaago waxaan imarka u tafaataxaysanayaa aan ku dadaalayaa sida Dr. Gaboose inaan waddankayga maskaxdayda iyo caqligayga aan ugu qabto dhinaca siyaasadda dalka ururkan ummaddu runtii waa siduu markaba tilmaamaya waa urur ummadda matalaya waxqabadkeeda horumarkeeda dhinac walba waa xisbi runtii sida hadda muuqata dee waxaad moodaaba in ururkii ka gudbay oo uu yahay xisbi runtii markaad eegto ifafaalaha waa xisbi dhammaan somalilan ay u dhan tahay oo aanu shaksi lahayn oo loo dhan yahay daraf ilaa daraf waxa ku dhan aqoon-yahanadii waddanka oo wada jaamiciya oo guddoomiye yahay Professor Maxamed Cabdi Gaboose oo wada garanaysaan Maxamed Cabdi Gaboose waa aniga wuxuu ahaa macalinkaygii jaamacadda professorkaygii wuxuu dhigay jaamacaddaygii dhigay marka waa ilaahay mahadi haddaan maanta siyaasaddii fagaara siyaasadda aan garabka isku qabsano ilaahay baan ugu mahadinaya xisb ururkani kolba afkayga wuxuu iga xadayaa xisbigii ururkani runtii wuxuu ka madax bannaan yahay qabyaaladda kalitalisnimo colaad iyo danaysi intaba uu ka madax bannaan yahay ururkani ummaddu insha allah wuxuu noqon doonaa xisbi daweyn doona cadaalad darrada aqoon la-aanta qabyaaladda horumar la-aanta colaadda beelaha walaaleynta ayaanu ku dadaali doonaa insha allah beelaha oo dhan بسم الله الرحمن الرحيم marti sharafta milgaha naga mudan iyo taageerayaasha ururka ummadda dhammaantiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ma tirin karo salaadiin cuqaal mas-uuliyiin dhallinyaro ma tirin karno dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa la lahaa
hadduu wasiirkii arrimaha gudaha kaga digay muxuu urur ugu dhawaaqi waayey ayaa muddo la lahaa inaad ka fiirsatid ururnimadu waa wax culus waa wax aada qadiyad qaran salka ku haysa inaad ka fiirsatid ayaa ah qarannimada qeyb inay ka mid tahay mas-uuliyaddaada waktigii diiwaangelintana weli waxaa ka haray dhowr iyo 40 cashaa weli ka haray waxaan idiin sheegayaa waxa iigu weyn waktigaa iga qaadayna inay ahayd inaan isku helo dad mas-uuliyadda qaranka xambaari kara qabyaaladda iyo cunsuriyadda ku yar gobollada dalka iyo deegaamada wada mateli kara ma dhammayn karo laakiin bilowga intii aan isku helnay ayaan iyakana magacyahooda halkaan idinkaga sheegi doono marka urur qof leeyahay ee keligii mooyaane ummad lale aanay jirin ee yaacaya waxaan ka doorbidnay urur ummaddu bacdamaa magacu sidaa yahay ummadda matala yahay inay dhaqaaqdo oo ay howl wada galaan waxaan idiin sheegayaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad oo halkaa aad ku arkaysaan sawirkiisa oo nin maraykanka degana oo soo guuraya dhaqso qaasim sheekh ibraahim tubeec oo mutacalimka laydiin sheegay ah wuxuu ka soo jeedaa gobolka awdal waxaan idiin sheegay inay dhammaatay wax yar oo qurxina gobolka sool mas-uul weyn ood wada garanaysaan inuu ku qoran yahay oo aan 7 casho gudahood laga yaabo inaan soo deyn waxaa guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ah injineer cabdirashiid maxamuud cali oo mutacalim weyn ah oo matalaya burco ilaa ceerigaalo deegaanka ballaaran ka soo jeeda waxaan u malaynayaa inuu istaago keliya ku filan guddoomiye ku-xigeenka kale waayo inteenaani waa in wax uga baahatay oo wada garanaysa doctor xuseen ismaaciil cabdi oo ka soo jeeda gobolka saaxil waxaan idiin sheegnay in marwo dumara oo qaali ah oo ragga baradheeraysata iyadana inay xagga habluhu dhowaan soo bandhigi doonaan oo taariikhda somalilan markii ugu horreysay ee madaxweyne ku-xigeen jagadiisa la keenaa haddii aan u gudbo xogeyaasha in yaroo kooban oo hordhaca maxamuud cabdi xaamud nayn waa somalilan way taqaanaa ka sheekayn maayo waa ragga dalka maanta maamulaya tacliintoodii baa fadhida waa xogeyaha arrimaha dibadda iyo xiriirka qorbajoogo isagoo dayuuradda markaa fuulaya ayuu uga soo degay ururka bahweynta somalilan ay ku baheebayso inuu qaybtiisa ka qaato waxaa ku xiga maxamed nuur hufane oo isaguna gidii ragga aan idiin sheegayaa waa wada PhD ama waa wada dhakhaatiir waa aqoon-yahankii dalka maxamed nuur hufane oo ah insha allah noqon doona laakiin hadda xisbiga usii matalaya hooska shadow government weeyaane wasiirka macnaa u matali doona xogeyaha arrimaha gudaha waa nin ka soo jeeda saylac ilaa jabuuti ilaa dirdaba ka soo jeeda xubinta ugu culus ururkeeda oo aan ballan qaadnay waxa weeye inay ururkan dhallinyaradu qabsadaan
kaalin firfircoon ka qaataan la wareegaan mustaqbalka dhow waayo waqtigaaba nahayaba haddaan garan weynana waqtigaana riixay waxa weeye ciid muuse maxamed waa xogayaha horumarinta arrimaha dhalinyarada waxaa intaa dheer waxaan weli ururada aanay ku dhaqaaqin ayaana nagu ku dhaqaaqin waxaasina waxa weeye bini aadamku wuxuu bini aadamku yahay sharciga haddii wixii la dhigtay uu xurmayn waayo meel gaari maayo markaa gudahaaga waxaad u baahan tahay sharciyadda cid kugu hagtee kugu haysa dibadda dhibaatada kaaga imaanaysana waxaad u baahan tahay cid kaaga talisa kaala talisa kaa wajahda kaa difaaca waxa weeye sharcigu waa wadnaha garaacaya ururka ummadda inaan ixtiraamno marka waxaan samaynay annagoo aaminsan inaan ku guulaysanayno cadowgayaduna nixi doono mar haddaan sharcigii u samaysanay gaashaan gudaha iyagana aan ku kala badbaadayno waxa weeye siciid faarax axmed waxba ka oran maayo waa guddoomiyihii maxkamadda sare ee somalilan ee hore waxaan leenahay marka waxaan la maqnayn weliba waxaan rabnay inaan sii raagnay dadkii ayaa naga joojin waayey dhawaaq marka fursadda noo harsan ayaan weli ku dadaalaynaa inta naga harsanna inaan dhammaystirano annakoo qurxoon annakoo idin wada matalayna annakoon xisbi nin leeyahay aanan soo wadin annakoo xisbi beel leedahay aanan soo wadin annakoo xisbi ummad idinku aad leediin keenayna aad baan idinkugu mahadinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu